صباح wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada magacaygu waa Linda marka hore barasho wanaagsan anigu Kentan baan ku noolahay keligay ayaan ku nool gurigaas ka samaysan cawska iyo dhoobada waan jeclahay Kentan subaxii markaan soo kaco hore baan ka soo kacaa kadibna waxaan imaadaa jikadayda jikadayda raaca inta si soo mashid ka warama dabashita waxa samaystaa quraacda waxa ka samaystaa bur aniga aad baan u jeclahay burkaan si qurux badan baan u kariyaa kadib waan soo qaataa in mariya marka waxaan aadanaa meesha aan ku cunteeyo halkan ma ku cunteeya iyada masuma qurux badnaa maanta fikir kale ay haystaa maanta dhan maskaxeeda waxaa kusoo laalaabanaya oo ka fikiraya sacaas ma aqaan waxaa rabaa inaan weheshado sida u fikiraya cuntadii haaf baa dhammaystay intii kale bannaanka ula soo baxay way kana saaxiib markana weli saaxiib baa ka fikirayaa saca waxaan jeclaan lahaa inaan weheshado ina aana ka maalo markii dambe fikrad baa igu soo dhacday waxaa damcay ina aado duurka oo ekana waa soo baxay ilakeena duurkaas ku raacana keenta imaanay keenta maanta aad u qurux badan tahay shimbiraha duulduulaya ubaxyo badanaa ku yaala iftiin qurux badan baa ka baxaya sida u soo socday oo keenta u dhex marayay markii dambe waxaa la kulmay god weyn oo deeqa ah godka dhinaciisa markaa istaagay markii waxaa maqlay cod sac baa maqlay laakiin codkaas ma aqoonsan meeshu iga xigo haddana codkii markalaa maqlay haddana markalaa maqlay ugu dambeyn waxaa ogaaday godka aan dhinaciisa taaganaha oo deeqada inuu sac ku dhex jiro halkiibaa waxaa bilaabay inuu saci caawiyo markaa saci soo saaray wuxuu iga bilaabay inuu iga cararo si u orday deeqadu igula orday madaxeega timaheega dhaafteeda dhiiqo ka dhigay laakiin aniga beera kama fikir isug waa ku caawinaysa olaa marka dambe wuu ii istaagay waa kaxeeya waa kana saci waa soo nadiifiyey laakiin saca waa mid mucjiso ah mar wuxuu noqdaa cadaan iyo madow sidan oo kale markale guduud waa kan guduud oo noqday markan ceelkaa keenay biyaa ka siinayaa biyuu cabay intaa markaa sameeyey kadib saca wuxuu bilaabay inuu ii mahad celiyo wuxuu ku dhahay Linda waa mahadsan tahay in kula saaxiibaya wuu isalaamay laakiin wuxuu ku dhahay Linda aniga sacaadeyni sir baa rabaa inaan kuu sheego aniga awood waxa u leeyahay inaan duulo waxaa rabaa inaan soo abaalmariyo maadaama ay caawisay dhabarkeyga soo fuul waxaa rabaa surprise inaan ku sameeyo dhabarkiisaa fuulay wuu ila duulay mar kale saaxiib midabkiisa wuxuu isku bedelay cadaan iyo madow keymihii buurihii wixii dhan buu ila dulmaray qurux dhulka dhan aniga waa iska daawanaya timaheyga dabeesha qaaqaadaysay saa isaga soconay wuxuu i keenay meel beer ah oo miraheeda oo dhan ay yihiin dahab wuxuu ku dhahay dhaqso Linda mirahan gura waa ku sugayaa mirihii dahabkaa waa buuxsiyey waa guray markaa buuxiyey haddana sicii saaxiibkiiha wuu ii yimaada wuxuu dhabarkeyga soo fur wuu ila soo duulay suuqana way dhex keenay dadka dhan baa igu soo ururay dahabkiiba iga gateen lacag badan bay iga siiyeen dahabkii anigu waa yaabanahay markan lacagtii dahabka ahayd dhan waa soo sartay $1 baa kasoo dhigtay aniga waxaa soo gashtay labiska dadka madaxda iyo boqortooyada taajba madaxa soo sartay darqaaliyaa soo gatay aniga dhan boqorad ba ahay kadib saaxiibkii wuu u yimaado wuxuu u dhahay mar kale Linda dhabarkeyga soo fuul wuu ila soo duulay wuxuu ila soo maray markan weliga jiha kale buu ila duulay saaxiibkey suu ii soo waday ila duulaya aniga lacagteedii waa wataa madaxa taaj baa ii saaran waa faraxsanahay wuxuu i keenay meel kale oo qurux badan oo guri weyn oo qasri ah laga dhisay oo shaqaalayaal badan joogaan oo webi agtiisa ah wuxuu ku dhahay Linda gurigan adiga ayaa iskale lacagtaadan haysato ku bixi shaqaalahaasi anaa ku diyaariyey meeshaas baad joogi doontaa waxaan kaa dhigayaa boqorad yar aniga waan farxay gurigii baa soo dhaweeyey kadib saaxiibkii uu iga tegay wuxuu ii soo noqday asagoo wada xayawaano badan bakaylayaal bisado riyo aniga farxad adduunka bakaylayaasha ugu jeclahay saaxiibkii markale wuxuu ii keenay xayawaan oo weheshado oo badan wuxuu u dhahay xayawaankan adiga ay iskala xanaanayso haddana mar kale wuxuu bilaabay inuu tago waxaan arkayaa isagoo soo xambaaray xayawaan kale xitaa libaaxa buu soo xambaaray sac yaraa ku jiro daayeen wuxuu igu dhahay waxa u noolaataa sida boqorada aniga waan farxay runtii aad baa saaxiibkii ugu mahad celiyey gurigaana qasri ana wuu ii dhisay aad buu mahadsan yahay intaas kadib waxaa kasii cajiibsanaa oo saaxiibkii ii keenay waxa waaye
faraskan fiiro sida uu qurux badan yahay, aad baa uga helay runtii, waa la saaxiibay faraskan. Wuxuu kaloo ii keenay bisadan iyo hudhudkan. Hudhudka waa saaxiibkii qaaska ah. Hudhudka waa shimbir caqli badan. Shimbirtan aad baa u jeclaaday runtii marka iyadii bisada laga soo tago. Aad bay u caqli badan tahay, wax walba way garanaysaa. Saaxiib dhow baa rabaa inaad ka dhigto. Waa kaasaa sheekada qaybta sheekadeyda sida qaybta labaad la socoto muuqaalka like garee channelka subscribe saar laba saaxiibadaada la wadaag muuqaalka soo dhawaada mar